daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Dhaamsi guyyaa har'aantanaa afaan Somaaliitiin qabannee dhiyaanne kuni dhaamsa liyyuu pooliis jechuudhaan Ogaadeen keessatti kan beekaman yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti qabeenya saamaa, mana gubaa, mana barbadeessaa fi nama ajjeesaa warra jiraniif. Kanaaf itti dhiyaadhaa. Silsilada mansuga mayama sifaiyo tilmango lagu wada sodajira Iliyada silsilada mansuga mayama sifaiyo tilmango lagu wada sodajira Sumatena dena alamke بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا maanta waxa ku saabsan yahay hagardaamada gumeysiga ku dhisan qaybi oo xukun saasi daraadeed waxaanu kaga hadli doonaa qodobo dhowr ah oo ka dhaxeeya danaha qoomiyadaha kala duwan ee ku hoos jira cadawga gumeysiga madow ee Itoobiya موضوعنا maanta waxaan ku soo qaadan doonaa labada qoomiyadood ee Oromada iyo Ogaadeenka arqalada cusub ee gumeysigu ka dhax uumayo sidaas daraadeed waxa aan mawduucan halku dhig uga dhigay hagardaamada gumeysiga ee ku dhisan qaybi xukun okay marka aan saaw dhigay waxay tahay ujeedada gaarka ah ee ka lahay labada qoomiyadood ee Oromada iyo Soomaalidu waa dad walaalo ah muddo dheer qarniyaal soo wada noolaa jirin lamana sheegin meel ay ku dagaalameen sidaas daraadeed labada qoomiyadood waxa ka dhaxeeya xiriir dhaqan dhaqaale mid nololeed iyo mid bulshada waxa soo cusboonaaday muddooyinkan dambe niman la yiraahdo Liu Police oo u adeega gumeysiga Itoobiya sidaas daraadeed waxa aan mawduucan soo bandhigayaa dhammaan aqoon-yahanada nabadoonnada odayaasha iyo cid ay khusayso danaha geeska Afrika gaar ahaan labada qoomiyadeed ee Oromada iyo Soomaalida waxaan soo qaadanayaa toddobaadkan u dambeeyay meelaha ay dagaaladu ka dhaceen sida Bali, Harar, Boran waxaan gaar ahaan uga dhigayaa deegaanada la isku haystay ma dhul Oromo mise waa dhul Soomaaliyeed sheekada meesha ka jirta markaan hoostigu daatagno dhulku waa dhulna ninkii degan baa iska maanta ma taagna xad ay isku haystaan Ogaadeen iyo Soomaali iyo maxaan ku raadaa Oromo waxa ay ka taagan tahay ciidanka Liu Police oo u adeegaya gumeysiga ayaa waxa ay ugu talagaleen sharcigoodii ahaa qaybi oo xukun in ay ku fuliyaan Liu Police sababtoo ah ujeedada iyo looga dalinayo waxay tahay in lagu marin habaabiyo shacabka xornimadoonka reer Ogaadeniya ee u halgamaya xorriyadooda oo loogu talagalay in aysan ku fikirin inay u hanqaltaagaan himilodoodii xornimadoonka ahayd si cadaawad loogu abuuro qoomiyadaha jaarka la example sida Oromada waxa noo muuqata oo halka ka arkayna inay ka dhiidiyaan dhammaan cidii wax garaday dagaalka lagu hayo Oromada ee ay Liu Police ku hayaan iyagoo sabab looga dhigayo kilka shanaad wax liya shakhsiyan wax kil leeyahay ma aaminsani haato hase ahaatee waxaan uga gon leeyahay gumeysigu waxa ugu talagalay inuu Oromana cadowga dhigo Soomaalidana uu cadowga dhigo Oromada labada dhinac si uu isagu cimar dheer uga helo oo danihiisa gaar ahaaneed ugu fushado arinta dagaalka yay dantu ugu jirtaa ma Oromo ugu jirtaa dantu mise Soomaali arikan markaan anagu shakhsiyan hoos u dhaco dantu Oromana ugu ma jirto Soomaalina ugu ma jirto ka dhimanaya waa Oromo iyo Soomaali reerka qaxaya waa Soomaali ama waa Oromo
كدنتا قارك وجرتا واي وقميسيغا دبا دلفka cida la shaqeysan waxaan anigu dardaar aan soo jeedinaya dhammaan cida ay khusayso dhammaan deegaanada dagaalada ku socda inay ka qayb qaadan shacabkaas dagaalka ka socda ummadda oramada waxaan xasuusinaynaa in dagaalkaasi haba yaraatee qoomiyadda Soomaaliyeed la yiraahdo ay wax gacan ay ku leedin aysan jirin ee ay xagga dambe ka riixayaan wayaanaha iyo cida inta daba dhilifka waxaan fariinada gaanal ku diraya liyo booliska dhalinyarada la marin habaabiyay ee waajibkoodii ay gudan lahaayeen ee wadaniyadeeda gudan lahaayeen la marin habaabiyay waa su'aasha koobaad waa ciidankan iyo ku ciidankii ayo liyo boolis ma Ethiopian ba ma Soomaali ba ma Oromo isweydiintay tahay ayaa loogu talagalay inay ilaaliyaan ayaa loogu talagalay inay amnigooda ilaaliyaan waxa ayaan daraa liyo booliskii loogu talagalay inuu amniga shacabka ilaaliyo inuu dib xasuuq ugu sameeyo shacabkii loogu talagalay waxaan kala saari lahay liyo booliska ma waxa loo sameeyay inay amniga ummadda ilaaliyaan mise in lagu xasuuqo anigu waxaan aaminsanahay inay noqdeen hangoolkii lagu xasuuqayay shacabka Oromada iyo shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeed liyo booliska waxaan oran lahaa inaad ka waandoodaan hangoolnimadaas waxaa kaloo fariin dheer cod dheer iyo cod gaaban ugu diraya dagaaladan ka socda xuduudda haddii ay odayaasha iyo aqoon-yahanadu ay ka hadli waayeen gaar ahaan Ogaadeniya hadday ka hadli waayaan waxaa iman doonta Oromia oo qofka af Soomaali ku hadlaya ku noqdo kontraband sababtoo ah waxa hadda muuqatay gumaysigu waxa uu ka shaqeynayaa waa isku dhufashada labada qoomiyadood waayo isaga danta ugu jirta waxa weey cimri dheer dhinaca kale ummadda Soomaaliyeed waxa lagu maran habaabinaya dagaaladan xuduudda loogu furayo Oromia ka dhaxay loo furayay gumaysigu waxa uu wataa danihiisii gaar ahaaneed ee wuxuu ugu ummadda maran habaabin uga dhigaya qodashada ceel ka shilaabo waxaan la isku haysaaba ceelkan inuu yahay shalay tolo Chinese jabadu kuwa kula dagaalan ee inuu loqod loo diiday maanta waxa loogu maran habaabinaya ummaddu waxaan ka dhax socda in lagu maran habaabiyo oo la sadaq dagaal sokeeye lagu furo si ay u loobaan hantidoodan la dhacayo marka waxaan arrinkan soo gudbinayaa cidda wax garadkii inay ka hadlaan dagaalada socda yay khusayaan ma Oromo khusayaan ma Soomaali khusayaan yay dani ugu jirtaa ma Oromo dani ugu jirtaa ma Soomaali ugu jirtaa anigu waxaan qabaa inay wayaanaha danta ugu jirto danta kaliya meesha ku jirta ay tahay dan wayaanaha loo fulinayo oo ay fulinayaan daba dhilifka u adeego sidaas daraadeed waxaan fariintan dheer aan u dirayaa inay ka hadlaan wax garad dood furanna laga furo arrintaas xuduudda Oromia iyo Ogaadeniya ma xuduud baa ka dhacaysa yes way ka dhacaysa xuduud way leeyahay xuduud dheer baleeyay yaa yaqaan yaa say u talanaya ONLF iyo OLF jabada xaqdirka kaliya waayo waxaanu naqoonsanaa dawladda Itoobiya kumeysina wadanka yaga inuu ma xadeyn karo anaga iyo walaalahayo Ogaadeenana waxaadoo dhax yaala ma jiro saasaan aaminsanahay qodobka waxaan ku soo koobaya dagaalada بسم الله السلام عليكم دمانتين dadka khiyaarta ah hooyooyinka gabdhaha odayaasha mas'uuliyiinta iyo shanta urur meesha maanta ku midoobay shirka wada fadhiya dhammaantiin waa salaamay waxaan malayn labada hadda luqadeed aad looga hadlaya Oromiya iyo Soomaalida ama Oromada ma aqaan diyo waxa ka soo hadlay iyo gabadha kale laakiin anu waxaan ka hadlayaa haddii aan leedmo wax yar oo ururka dhalinyarta Soomaalida Ogaadeniya OYSU iyo aragtideeda iyo waxa ay ka qabto iyo siday u aragto shirkan iyo ururadan midoobay waxa inoo turjubi doonta walaasheen Saamiya inoo turjubi doonta haddii aan leedmo wixii af Oromaa iyo Soomaaliga isu keen bedeli doonta marka koobaad
ururka dhalinyarta ee Soomaalida ogaadeynaya sharaxaad yar kooban haddaan ka bixino inteena taqaano mooye inteena kale waxaa la aasaasay 2017 bishii lixaad waxaana lagu aasaasay dalka Denmark magaalada Copenhagen inta ka bacdi waxaa loo aasaasay ururkan inuu abaabulo oo isku xidho oo wada shaqayn la sameeyo dhammaan ururada bulshada caalamka ka jira oo xidhiidh la sameeyo wax cid kasta oo u taagan in ay ka xorowdo cadawga rajiimka ah ee Ethiopia in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo haddii la joojin waayo waxay keeni doontaa cawaaqib xumo aan geeska Afrika nabadi u soo hoyan doonin sababtoo ah waxaa dhici doonta maanta waxaan ka hadlaynaa darafyada waxaa dhici doonta Oromia ay Soomaaliya kootarban ku noqoto sababtoo ah Soomaali waa u Soomaali Ethiopia totally Soomaali waa u Soomaali qabiiladan iyo waxaan Soomaalidu ba sheegay laakiin Ethiopia xaq garbiyan waa Soomaali tiyo qofka af Soomaali ku hadlaya kootarban noqdo ayaa dhici doonta haddii aan laga hordegin hagardaamada ay wadaan liyi booliisku khaasatan cid ay toos u khusaysa waa ogaadeen amba dadka ogaadeenka inay ka hadlaan arrinkaas oo ay ka dhiidhiyaan labada shacab ee isku dhufanayo halgankii xornimo doonaysa cidina wuxuu ku keeni doonaa hakad iskaashaan buuraysigii halgankana wuxuu keeni doonaa dib u dhac buu keeni doonaa si intaasi u dhicin waa in ay ka hordegaan nimanka xaquudirirkii arrinkaas sida ugu dhaqsaa bal waan ugu jawaab uga bixiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagardaamada gumaysiga ee ku dhisan qayb iyo xukun waxaan uga gol leeyahay ereygaas labada qowmiyadeed ee Oromada ah waxay leeyihiin laba jabhadood oo halgamayaal ah oo xornimada dhulkooda u halgama sidaas daraadeed labada jabhadood waxa ka dhaxeeya xiriirka shaambuuraysi si ciidka qodada dheer li aanu u lumin si wax qabadka labada jabhadood ka dhaxeeya aan waxyeello uga soo gaarin waxaan farayaa labada jabhadood inay iyaguna dhankooda arrinkaas ay ka dadaalaan isku dhac labada qowmiyadoodii si aan u dhicin inta kale waxaan halka cadaynayaa halganka ka socda Oromia iyo Ogaadenia waxaan aaminsanahay liyi booliisku maanta xasuuqan Oromo oo kaliya inaan ku hayn waxaan ogahay kumanaan reer Ogaadeniana inuu xasuuq ku socdo iyagoo loogu aanaynayo halgankooda xornimo doon siyaasi daraadeed waxaan farayaa in gacmaha aan isqabsanno oo aan iska dhicinno gumaysigan isku keendiraya waxaan fariin aan u dirayaa inta u adeegta gumaysiga Tigreeg wuu tagayaa ma bil 2 bilood sanad inuu joogi doono ilaah baa garan laakiin waxaan noocad oo nu aaminsanahay in aan Tigreey iyo wixii la halmaalaba iska xoreyn doono cidda u shaqeysa ama dabadhilifka u ahay bari meesha aad isteeg lahaydeen isweydiiya Ogaadenia godob baad ka gasheen Oromiana godob baad ka gasheen Tigreena maqaalo ku weyn doona arrinkaas ka fikira ayhiina dambe ka fikira anna waxaan aaminsanahay dhul ninkiisi baa iska leh ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa dalkan Talyaani baa noogu yimid Ingiriis baa noogu yimid Amxaara noogu timid way iska tagtay door dharaareed Milig baa yimid door dharaareed biska caraabay waxay Maryam baa yimid door dharaareed buu caraabay Tigreeguna waa la mid annaga iska leh iyagu baa tagi doona nimanka moodaya inuu Tigreey sii joogi doono ka tashada imika intay koor tahay wax yar baa u dhiban Tigreey in wadanka sii joogo ummadda Oromada iyo Soomaalidana isku durkoodana ka shaqeeysan ka waantooba dhalinyarada reer booliski ha ka taxadaraan xasuuqa ay ummadooda ku hayaan